waxaanu xasuusiyay khadar oo aan doonayay halka ku qabto gabay u tiriyay ninkii loo jiray Cabdiidaan Faarax wuxuu waxaan raacay diyaaradii ugu horeysay ee rakaaba ee Soomaalida la siiyo ayaa wuxuu ka soo raacay xamar ilaa Hargeysa halka inuu maanta joogno madaarka dabeedna Cabdi baa ka yaabay diyaarad hor muu raacin waxa la socday nimay ilmaad raayeen oo loo jiray Cali Muuse isagoo reecadmeed ahaa dabeedna markii Hargeysa ka soo degeen ee uu la inta ka yaabana diyaaradii ayaa wuxuu ku yiri Cabdiidaan oo wax dheh ha oranina aaltum la maanta ha gurine Cabdiidaan garaar yar ama gabay yar oo quruxda ka tiriyay on doonayna diyaaraddan ku xayisiyo maadaama ay tahay taasina waxay diyaaradii ugu horeysay Soomaalida la siiyo tan waa diyaaradii ugu horeysay ee lagu cunteeyo ama lagu caruisto ama lagu faakahaysto ama la isugu yimaado waxa weeyaan hadalka dheerayna Cabdi wuxuu ku bilaabay farta roora duleedkii rakaw baynu lahayn rigtii taa ka dambeysana moor dowga ku raagan nin gaadha reeranayay haddaan raacay diyaarad reer Soomaaligu leeyahay rabba waa mahadda rigteedii guux iyo qurqaasi dhaqaaq ayaan ku raaxaysanayo inay may ruuxayne maraaskii aqalkayga ruumi leeyga guliba kolkay raarka daruurta roorisay ka koroysay kaafir raarahud gooniyo hadba shaah ma rabtaaniyo raashinkii ka bislaaday baa rakaabkii ka durduurtay markaasaa nin riyoodo hurda seexday ruuxaygiisu maleeyay buur kan shookaanta rogaaya ee rakaadkiisa ugu taagay meelaan raaduga muuqan buu isagoon ka rindiidsan oon rubuctaa ka leexin rugta soo geliyaayo ramaraabi barnaamij ruga gowdajiyay alla raybsana muxuu diinta ku raagay raga loo mawala buu imika waxaan loo khadar raga loo mawala ودياردي قويسة مركا الله واسخو سيان لبدا شيكو magacayga waa Xamsa Jaxsan inta taqaanaa way taqaanaa anigoo maanta la dhanka imi ayaa nasiib u yeeshay inuu khadar halkan igu yeero oo aan xayisiinta yar oo in badan doonayay inaan diyaaradda dalkaba ku xayisiyo waxaan ku xayisiyay restaurantkii dalka oo diyaaradda dalka Soomaaliland caalamka Soomaaliland qaatan oo ku xayisiin doonaa wada salaamaya wasalaam calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh